fanaanada weyn oo Soomaaliyeed Hibo Maxamed Cabduul Hibo Nuur ayaa qaladaan ka soo saartay abaarta ku dhufatay Soomaaliya iyadoo dadka wax haysta ugu baaqday inay ka qayb qaataan oo u soo jeestaan sidii xaalad adag looga soo bixin lahaa dadka u nugul kaasi iyo aan ku dhimanaya deegaanada qaar waxa ay soo tariyay qaladaanta ku aadan gurmadka abaaraha Soomaaliya xilli ay boqolaal carruur ah ugu dhimanayaan gaajo iyo macaluul qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah ee gargaarka iyo dawladda Soomaaliya ee dawadii ugu dambeeyay soo saaray warbixin sheegay in abaartu isku bedel rabto macaluul galaafata nolosha kumanaan qof Hibo Nuur oo la hadashay idaacadda VOA ayaa ugu horeyn u duceysay dadka Soomaaliyeed ee abaartan saameysay sidoo kale waxay tilmaantay in dadka caanka ah ay door muhiim ah ka qaadan karaan gurmadka dadka tabaalaysan waxay sheegtay in xilligii dawladda adag ka jirtay Soomaaliya aysan qabin walwal badan maadaama ay dawladdu awood u lahayd inay dadka caawiso baahiyadooda balse hadda waxay sheegtay in xaaladdan aan lagu haleey karin dawladda kaliya sidii hore ma nihin laakiin 20 sano u dambeysay dawladihii dalka soo dhismayay dadka jiray karaankooda waxa ay ku bixiyeen dadka laakiin hadda waxaan rabnaa in dadka caanka ay garab istaagaan dadka tabaalaysan abaarta ku dhufatay ayay tiri Hibo Nuur